madaxtooyadu liis bay muxuu ahaay soo diyaarsatay shalay ayay noo yimaadeen liis baana la tusay aanan garanayn liiskaas boqolkiiba 70 dad ma ahayn xitaa habraaci soo maray dad feel xeerste ma ahayn dad aan aragnay ma ahayn dad aan wajiyadooda garanayno muxuu ahaay ma ahayn arrintaas waxay keentay shoog waxay keentay khilaaf ilaa xalay waxaa socday murankii markuu dhammaan waayey waxa weeye anigu gudoomiye ahaan oo sabab ahaa isma soo jireen xubnahoodii xubno aan meesha ku jirin dad bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ah maalin isniina bishuna tahay bishii koowaad 2024 waxaan rabaa halkan inaan ku qabto shir jiraa'id waan kaga hadlayno arrimihii ilaa xaalad ka dhacay caasimadda dowladda goboleedka Puntland ee ku saabsanaa arrimihii soo xiritaanka baarlamaanka dowladda Puntland ee lixaad sida la wada ogsoon yahay 12 bisha 12aad waxaa noo magacaabay guddiga khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka Puntland oo ka kooban 7 xubnood oo aanu ahay gudoomiye iyo xoghayn waxaan shaqada bilownay 16 bisha waxaan sameynay ajende ah 16 in muxuu ahaay soconayso fayl qabashadu alxamdulillahi rabbil caalamiin inta waxaan ku guuleysanay waxaan qabanay 240 fayl ayaan qabanay shaqada bisha markii shaqadii muxuu ahaay dhamaan weeday hal maalin ayaan ku darnay 16 ayaan gabagabaynay intaa waxaan shaqo soo qabanay inaan la shirno musharaxiin mucaarada bulshada qeybaheeda kala duwan hadday noqoto muxuu ahaay culimo hadday noqoto muxuu ahaay ganacsato waxaan kaloo la shirnay madaxweynihii hore Faroole waxaan la shirnay musharaxiin kale waxaan la shirnay isimo dhammaan waxaan ka hadlaynay maadaama khilaaf siyaasadeed uu dalka ka jiray in aanu nahay guddi dhexdhexaad ah iskuna kalsoon dadkuna ay markasta ku kalsoonaadaan shaqadii hadday soo dhamaatay waa la rabay in la sameeyo sidii loo kala guri lahaa guddiga khilaafaadka wax loo magacaabaa waxyaabaha khilaafaadka ku jiro xubnaha khilaafaadka ka jiro in muxuu ahaay la kala guro haddaan shaqadii guda galnay waan rabnay wixii inaan gurno waxay muxuu ahaay caqabado guddigii oo muxuu ahaay la soo dhexgalay annaguna dee guddi dhexdhexaad baan ahayn mar haddaad dhexdhexaad tahayna dadkoo dhan inaad u cadaalad samayso ayaa loo baahan yahay laakiin dadkii u garnaqaysa haddaad dhinac garab ka saadho ama dhinac kale wax ka siiso ama iyagii marjac ka dhigato waa fashimaysaa sida la socoto sida loo ogsoon yahay ilaa 2005 ilaa hadda waxaa soo jiray guddiga khilaafaad la magacaabayay waxaa jiray habraacyo la maro annagu markaa guddi ahaan waxaan soo jeediyey anigu gudoomiye ahaan Isxaaq Axmed Xasan in aan wax jeceysiga iska dayno waxa aanu jeclahay iyo waxa guddiga qaar kamid jecel yihiin iyo wax madaxtooyadu jeceshahay iyo wax musharaxiintu jecel yihiin intaan iska dayno wixii halkaa yaa la raaco weliba gobolada nugaal iyo sool nugaal iyo sanaag khilaaf muxuu ahaay kama jirin laakiin meelaha khilaaf ka jiro badanaaba waa xubno muduga iyo xubno bariga iyo arrinta muxuu ahaay SEO siyaasado badan muxuu ahaay ku meeleysnaayeen arrinta haddii sidaa ahayd annagu waxaan ku dadaalnay inaan wax badan la dagaalno musuqmaasuqa iyo tabamarinta dadka oo laqdaba loo sheego dadka oo laaluush laga qaato ummadda oo la iska horkeeno dadka oo la isku dilo intaba waxa weeye waan la dagaalanay intaa ka bacdi waxaa dhacay madaxtooyadu liis bay muxuu ahaay soo diyaarsatay shalay ayay noo yimaadeen liis baana la tusay aanan garanayn liiskaas boqolkiiba 70 dad ma ahayn xitaa habraaci soo maray dad feel xeerste ma ahayn dad aan aragnay ma ahayn dad aan wajiyadooda garanayno muxuu ahaay ma ahayn arrintaas waxay keentay shoog waxay keentay khilaaf ilaa xalay waxaa socday murankii markuu dhammaan waayey waxa weeye anigu gudoomiye ahaan oo sabab ahaa isma soo jireen xubnahoodii xubno aan meesha ku jirin dad aan u qalmin muxuu ahaay matalaad iyo masiirka muxuu ahaay Puntland in meeshaas dhib iyo khilaaf ka imanayso anigu gudoomiye ahaan waxaan sirbar arrintiisa u hakato waxa weeye bal ka dhac si aan Puntland u badbaadiyo ma rabin inaan shir qabto ilaahdo waa iscasilay waayo dhib ka weyn baa imanaysa waxaan ka cararayo
mana rabin in muxuu ahaaye arrinta xilligaa socotay oo isfahamada ka dhacday inaan anigu qayb ka noqdo. waxaan islahaa arrinta maadaama aduu aada hakisay waa la hakinayaa, balantu waxay ahayd saaka inaan muxuu ahaaye dib isugu soo noqono. xalaba media markii waxaa soo geliyey in liis hawada la soo geliyey in muxuu ahaaye baarlamaankii puntland muxuu ahaaye sidaa ansax ku yahay, arrimaha noocaas ayaa soo geliyey. arrintaas kulley aniga waxay u noqotay shoog. nidaam baa jira baarlamaanka lagu soo xulo, nidaam baa jira lagu shaaciyo, cid baa jira shaacisa, cid baa jira ku dhawaaqda, habraac bay muxuu ahaaye maraan. anu marka waxaan sheegaya waxaa caddeynaya ummadda reer puntland wixii xalay meesha ka dhacay wax ka jira inaan jirin, anigu inaanan goobtaa joogin, inaanan saxiixin, inaanan halkaali ka ahayn, inaanan ku qanacsanayn, inaan dad badan aan muxuu ahaaye ka wada hadalnay. muxuu ahaaye sida hadda wadda kuu socdana waa inaad daba u socotona puntland waxaan ma qaadi kardho, waayo puntland wada ogolaasho, wada jir, walaalnimo, wax isla lahaansho ayaa lagu joogay. laakiin inuu nin isagu wax iska muxuu ahaaye sheegto ma ahayn. waa la ismagacaabaa, madaxweyneha waa la doortay, baarlamaanka naftooda waa soo xulay, aniga waa la magacaabay, laakiin waxaa loo baahaya in sharciyadda lagu shaqeeye, in qof rabitaankiis iyo arrintadii lagu shaqeeyo. maxaa loo baahna, anigu muwaadin baan ahay, muwaadiniinta puntland ka mid ah. puntland waxay u baahan tahay badbaado ayay muxuu ahay u baahan tahay. maalin kasta wixii la rabo in la iska sameeyo la yidhaahdo waa sax waa sax waa sax oo muxuu ahaye uma baahna. waxay u baahan tahay maskabka iyo maalka iyo magaca wax ka weyn jiritaanka puntland. marka waxaan leenahay puntland meesha ay tahay ciddii dhintay waa la yaqaan, wixii waxaa sameeya waa la yaqaan. waxaanu wax soo jiitmaya muddo badan khaldamay weeye. maanta waxaa la jooga xilli wax saxayay. puntland waxay u baahan tahay dad u qalma, baarlamaan u qalma. haddaan marka shacabku damiir iyo dadnimo yeelan, puntland meel fog baa laga doonaya. puntland waxay u baahan tahay matalaad, waxay u baahan tahay baarlamaan u qalma, waxay u baahan tahay madax u qalanta, waxay u baahan tahay wasiiro u qalma, waxay u baahan tahay dad u shaqeeya, waxay u baahan tahay isla xisaabtan iyo korjoogteyn iyo cadaaladdu inay shaqeyso. waxa weeye marka mar labaad iyo mar koowaad wixii meesha ka dhacay waxaanu ka ogahay iyo waxaan ka saxiixay iyo waxaan ka eri midna ma jiro. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.